guddida anshaxa iyo dacwadaha ciyaaraha gobolada Somaliland ayaa maanta waxay go'aamo ka soo saareen ciyaartii muranka dhalisay ee shalay dhaxmartay gobolada Hawd iyo Daadmareed. Go'aamada guddida ayaa waxay u dhignaayeen sida tan. Qodobka koobaad ayaa waxay ku yiraahdeen ciyaartu waxay ku dhamaatay sida uu go'aamiyay garsooruhu waxaanay guushu ku raacday gobolka Daadmareed sida ku cad qodobka 24aad ee sharciga tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland ee 2020 oo dhigaya gobolkii taageerayaashiisa iyo kooxdiisa laga wadi kari waayo ciyaarta waxa laga qaadi doonaa dhibcaha xataa hadii ay bariska iyagu leeyihiin. waxaa la ganaaxay gobolka Hawd in ay ciyaaraha gobolada ka maqnaadaan muddo 5 sano iyo ganaax lacageed oo dhan 20 milyan oo shilinka Somaliland. tababaraha gobolka Hawd Cabdifataax Ismaan Xuseen Shambareero waxaa la ganaaxay in uu ciyaaraha dalka ka maqnaado muddo 2 sano kadib markii uu carqaladeeyay habsami u socodka ciyaaraha isagoo oo isku dayay kicin sababtay amni darro sida ay wasaaraddu sheegtay. tababara ku-xigeenka gobolka Hawd Maxamed Ibrahim Cismaan waxaa la ganaaxay in uu ciyaaraha dalka ka maqnaado muddo 3 sano kadib markii uu carqaladeeyay habsami u socodka ciyaaraha iyo in uu gacan qaad sameeyay. ciyaaryahanka Cabdisamed Salabaan Cabdiraxmaan Laayax oo ka tirsan gobolka Hawd waxaa laga ganaaxay ciyaaraha gobolada dalka muddo 5 sano iyo 10 milyan oo ganaaxa kadib markii uu farasaaray garsooraha ciyaarta. ciyaaryahanka ayaan la good aadan oo ka tirsan gobolka Hawd waxaa laga ganaaxay ciyaaraha dalka muddo 3 sano kadib markii uu dil ugu hanjabay mas'uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha. garyaqaan aadan Shaafici Cabdi Xiis oo ka tirsan gobolka Hawd waxaa laga ganaaxay ciyaaraha dalka muddo 3 sano iyo 5 milyan oo lacag kadib markii uu waxyeello u geystay garoonka ciyaaraha. ciyaaryahanka Najiib Cabdisalaan Cilmi oo ka tirsan gobolka Hawd waxaa laga ganaaxay ciyaaraha dalka muddo 3 sano kadib markii uu isku dayay in uu waxyeello u geysto garsoorihii ciyaarta. ciyaaryahanka Caydaruus Cabdirashiid Xasan Shabeel oo ka tirsan gobolka Hawd waxaa laga ganaaxay ciyaaraha dalka muddo 2 sano kadib markii uu ishortaagay habsami socodka ciyaarta. ciyaaryahanka Fadxi Ismaaciil Maxamed Riin oo ka tirsan gobolka Hawd waxaa laga ganaaxay ciyaaraha dalka muddo 3 sano kadib markii uu isku dayay in uu waxyeello u geysto mas'uuliyiinta ciyaaraha. ciyaaryahanka Cabdirasaaq Maxamed Muuse Hiro goolhayaha gobolka Daadmareed waxaa laga ganaaxay ciyaaraha dalka muddo 2 sano iyo 3 bilood oo laga bilaabo 13 bishan kadib markii uu hanjabay calanwalaha koobaad ee ciyaartii dhaxmartay gobolada Hawd iyo Daadmareed. qodobadan waxaa ku saxeexan guddida dacwadaha iyo anshax marinta ee ciyaaraha gobolada Somaliland oo gudoomiye u yahay Ismaan Madar Samatar. dhinaca kalena madaxweynaha Somaliland ayaa saaka kulan la qaatay mas'uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland isagoo ka wareystay qaabka ay u socdaan ciyaaraha gobolada Somaliland. xasan galayd wararka Hargeysa.